soo dhawaada daawadayaal barnaamijkii hore magaciisu ahaa fanka iyo suugaanta hase yeeshee laga bilaabo toddobaadkan qaadan doona magaca ah bandhiga Nimco Samriye hase yeeshee inta ugu badan waxaanu isku dayi doonaa hadba fanaankaanu isleenahay daawadayaashiinu way xiisaynayaan inaanu hortiina keeno toddobaadkan haddaba yaanu ku soo marti qaadnay naftayda xulasha daran jacayl xidigiisu dhacay xiisuhu dhinac qudha ka jiro ayay xalu raadisaa xurmiyo taash saaraysaa xurmiyo taash saaraysaa xurmiyo taash saaraysaa xurmiyo taash saaraysaa waanigeeda niri fanaanku isaga de soo gali doona oo indihiinaad ku wada arki doontaan waba ka ciro oo marka hees macaan iyo waliba de muusik ku soo galay maxamed axmed bakaar aad baan kaaga mahad celinayaa inaad naga aqbashay martiqaadkan ciro aad mudan nimco de uma baahna baan filayaa barasho waa fanaan ka tirsan fanaaniinta xidigaha geeska waxay soo keen dambeysay barnaamijka magaciisu yahay fanka iyo suugaanta toddobaadkan laakiin bandhiga Nimco Samriye ayuu barnaamijku magacaas u qaadanayaa waxaanu kuugu soo casuunay adiguna inaad kamid ahayd fanaaniintii aanu barnaamijka markii horeba ku casuuni jirnay hase yeeshee maadaama haddana mar kale magac cusub iyo dardar cusub barnaamijku la soo baxay inaanu adiga kaaga dhigno sidaasaan ku dooranay mar kalena waan ku soo dhaweynayaa aad baad mahadsantahay nimco waan dhawaanay haddaan ku oran lahaa kelmad ku dhe shacabkeena daawanaya taageerayaashaada meel kasta jooga maxaad oran lahayd waxaan leeyahay taageerayaashayda aad baan idin jecelahay aad baan idin xiiseeyaa waxaan idin leeyahay caafimaad iyo cimri dheer ku noolaada iyo nabadqab ayaan idin leeyahay fanaaniinta dhalinyarada ah ee aadka loo jecel yahay baad ka mid tahay heesahoogana la dhageysto fankaaga imika dee marba marka ka dambeysa korba uu sii kacaya aad baan kugu hambalyeynayaa heeso cusub oo kala duwanna waad soo saarto aan sidaan filayo de waliba kuwaynu soo qaadan doonaan badankooga cidiba maqli waxaan oran karaa fankaaga dee wuu sii hilaacay haddaan ku oran lahaa aynu hees soo qabanno oo barnaamijka aynu ku bilowno heesteeda noo soo doori lahayd nimco waxaan ku bilaabi lahaa horta waxaan jecelahay mar walba inaan ka heeso qisooyinka dhabta ah ee ka dhaca bulshada dhexdeeda waan gartay fanaankuna waxa weeyaan muraayad sax dadka u soo gudbiya oo wixii qalba bulshada dhexdeeda ka jira waan gartay waxaan jeclaan lahaa hees la yiraahdo doob inaan ku bilaabano heestaas sheeko yar baa ka horeysa abwaasdiiq burmad ayaa erayada leh laxankana waxaa leh maxamed wiil xaaji iyo muusigii axmed ibrahim maxamed furle nin ayaa wuxuu lahaa asxaab badan meel bay wada fadhiisan jireen dabeedna asxaabtiisa waa wada guursatay isagoo hore u guursan waayo uu soo yaro taagnaaday in badan soo taagnaa dabeedna habeen walba laga rawaxayay maalin dambe reerkoodii baa isku tegay waxaa la yidhi ninkan uu weynaaday aynu u guurino aynu iska hor dhaqaajino qoladii ka yararayd baa u tashatay bacdayn ninkii markii loo guuriyey guurkaba isagu mabu aaminsanaynba waxaa uga yaraa fiicnayd asxaabtiisa iyo meelahan kale marka markii aqal galay ayuu guurka macaankiisii iyo dhadhankiisii noloshii soo yaro kac soo maydho quraac diyaarsan waxa aduu alaabo la kulmay dee ninkii asxaabtiisa ku soo noqday dabeedna wuxuu yidhi soo yaro calaysan buuri waa dhegaysta inta baa ku soo istaagay horta nimankiina niman lala saxiyo ma tihin ma waxaas unbaa habeen walba qarsanaysa oo diga rawaxaysa iyaguna way waayeen oo ninka way laayeen ninka hadduu guursaday maanu soo baxaynba sad weliba leedihiin waa lagu waayay buuri magaranaysa marka sidiiq burmad baa iga sheekeeyey isla sidiiq burmad baana qisada ku dhacday sidiiq baa isna sheekadaas soo halqabsaday isaga laftiisii baa hore ugu yaro guursaday asxaabtiisa ka yaro hor guursatay dabeedna sidiiq baa markii uu aqal galay ayuu arkay dee noloshii guurka markaa toos ayuu heestan u dhexgalo heestan uga sameeyey heestaana ku fahansiinaysa sidiiq u dhigayo
marka heesta doob leedaban insha Allah ugu furlaa taageeraysa insha Allah الله يلهدي وعجيب مركا هيستني waxay noqonaysaa hees doobabka u shidan oo de wixii dig loo kaco oo meesha isaga qaawayda de horaha loo guursado qof walba qofku markaas si jecel yahay uu isleeyahay nolosha uu ku haboon yahay inuu la qaybsado heestaasi doob iyo ciro dhaha di hal sanay dhaha dibad meerahay markiyo nolosha guurkan haddaan moodayo dugsoonkan haddaan moodayo daryeelkan ihaaliyo diiblaantan dhaxa ihalsanay dhaxa dibad meeraha markiyo nolosha guurkan haddaan moodayo daryeelkan haddaan moodayo dulqaadkan ihaaliyo diiblaantan haddaan dudo wada dulqaadkan kal iyo laab ii danayntan haddaan dudo wada dulqaadkan kal iyo laab ii danayntan intaan waa hore danaysto suman kula dadabgale suman kula dadabgaleeba haddaan dudo wada dulqaadkan iyo laabkii danayntan haddaan dudo wada dulqaadkan kal iyo laabkii danayntan intaan waa hore danaysto suman kula dadabgale suman kula dadabgale madaxaas iyo warkeeda haddaan muudayo dabiibkan haddaan muudayo daruurtan dawiiliyo damaqlaantan dhaxaa doob soo ahay intaa dala dhacay madaxaas iyo warkeeda haddaan muudayo dabiibkan haddaan muudayo daruurtan dawiiliyo damaqlaantan
haddaan dida soo dabaalkan haddaan duro qabada weyntan lahaa haddaan dida soo dabaalkan haddaan duro qabada weyntan horaan kuu dooni lahaye miyan ka daahilaa miyan ka daahilaa haddaan dida soo dabaalkan haddaan duro qabada weyntan haddaan dida soo dabaalkan haddaan duro qabada weyntan horaan kuu dooni lahaye miyan ka daahilaa miyan ka daahilaa allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey macaanii waadi deqday macaanii waadi deqday allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey macaanii waadi deqday macaanii waadi deqday allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey allaylehe wuu idaayey dayowgii wuu idaayey macaanii waadi deqday macaanii waadi deqday allaylehe waadi deeqday dayowgii wuu idaayey dee malaha idinkaaba markhaati kaa hees macaan way ahaydoo runtii dee sidaan idhi aan idhi wixii diiglow kaca way noqonaysaa aan u soo noqda mar kale iyo maxamed axmed bakaal heese kala duwan baa lagaaga bartoo jacayl leh mararka qaar bad heesaha foorjada ahee gabdhaha lagu yar laagayo aad sii dayn jirtay maalmihii hore inta xanaaqsan bayna kulmi jirtaan malaya hadda laakiin way ka duwantaa filaya inta jacayl ku badnayd bayna kulantaa haye laakiin lafteeda laagitaanka laftiisa wuxuu ka mid yahay qof wax jecelo cadhooday dee qof wax jecelo baa cadhoon karaa inta raxmadii caashiq horta kugu degtay way kaa muuqataa way heesahaagiibaa wada jacayl ammaan cajiib heestan markan soo qabanayana waxay ka mid tahay heesaha cusub ee fanaanka Ciro waxaa la yidhaha asturnaan dee malaha ammaan dhaaftay waxaabuu leeyahay ammaantay u qalantana afkun kama idhaahdee uurkaan uga duceeya wuxuu baabadee malaa niyadda iyo uurkaabay ku wanaagsan yihiin in afkun qofka laga ammaano oo heestaasna erayadeeda heestaas erayadeeda waxaa leh abwaan xasan dhuxulaab saalax laxankana xasan dhuxulaab saalax baa leh muusigana waa axmed ibraahim maxamuud runle nimco heestan saaxiibkii laab saalax koley saaxiib baan aad baan isugu dhownahay badankana waan isku dhownay isku meel baan joognaa waana gudoomiyaha xidigaa geeska waxaa dhacday wiilal ay saaxiib yihiin oo Sweden jooga ayaa soo wici jiray oo la soo hadli jiray marka wiilka ay saaxiibka yihiin waxaa jira xaas buu leeyahay dabeedna wuxuu arkay ninkaas xaaskiisa u jecel yahay suu mar walba u ammaanayo adigu dabeedna xasan dhuxul aniga lafteeda maanta waa la kala guri jeeday ninkaas saaxiibkii waa maay xaaskiisa dabeedna habeenkii dambe ninkaan saaxiibkanay gabadhiisa xoog buu jecel yahay asxaabtu dheed buu wareystay xukumiyo aanu dimaashadii wili lama kulmine waliga waran wuxuu yiraahday waa astaan bay noo tahay waanu eeganaa waxaan dumaradiina ku daydaanba
أريد عين كاسو كلون كذا ساو تعلو ساو إلى لسا وانقرت يسدو يسوون وجعلي ويعني قويس كده يشمدون ويانا قربان ما تشوفه وانقرت تبدنا حسن حلوحه قوان صدي إنه هيستن أصميه يحكوني وصاحب هذه يتبع إسلام هذا وقت عشرة هذه يدقيسو وانقرت وكان صاحب كابانا هاي إن هذه يد إسلام هذا أتصيله سو أنا أكون صميني بقولي اسمك حاجة دقيقة هاي تبدنا والله صاحب كي أدوق فرحي نكا وحلا شافي وانقرت حاسس إنه وحلا هيبو هاي يجا هيست الله قلت لك علي لما أنا هايشتغل وحن أقول لها كل هيست أنا كم مقطع قف كمركز أفهم كمان تحيي بانك تعالى يقول حسنا كنت هذا iyo markaad uurka uga ducaysid uurka jeceshay way kala duwan yihiin kala saameyn badan yihiin kulay ilaahayna wuxuu aqbalaa in ducada uurka ka timaado taas baan la aqbalaa qoyskuna markaa uu dhismaya marka waxaan leeyahay heestan saaxiibkii Shaafici iyo xaaskiisa ayaa loo sameeyay gaarta waan gartay haddaba waxaynu sugnaaba de waa ciro mikrofoonkii haysto aan idhi kaama qaadayo waa inaad mikrofoonka sidaa u haysato marba si aan u dhaahdo heestiina noo qaad wayna ka
وقاريايلي وروح ذابتيو إيمان كيدا قانيقا إلهي كما يستري أرقيد واروح إندهي وجعلي وقاريايلي واروح ذابتيو إيمان كيدا قانيقا إلهي كما يستري أوريوي دقنكيو هيدلغو عبابيو أقل كيدو إنو دمو أقل كيدو إنو دمو واروح وأدقو روح وأدقو أوريوي دقنكيو هيدلغو عبابيو أقل كيدو إنو دمو أقل كيدو إنو دمو واروح كوادقو روح كوادقو أمانتي وقالنتنا أكون كما إلهي وركان وبدعية وركان وبدعية أمانتي وقالنتنا أكون كما إلهي وركان وبدعية وركان وبدعية أمانتي وقالنتنا أكون كما إرادي وركان وبدعية وركان وبدعية واتهاي heestaas inaad si fiican uga wada bogateen wali waxaynu bartanka kaga jirnaa bandhiga nimca samriye oo markaas marti noogu yahay fanaanka maxamed axmed bakaal ciro oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska nasashada aanu diido marba aan ilaahdo alla ilahay muusigaasi macaan iyo dadkana daawanaya waa inaanay kala nasanba heesta shahrusaad ayaan ka dalban doonaa fanaanka aan idinku wareejiyo mikrofoonka nimca waad maasan tahay shahrusaad waxa weeye waa gabar yar oo aabaheed heesiyo inaan saaxiib nahay wuxuu leeyahay laba hablood maan iyo shahrusaad waa nin waxaa la weli muuse waa nin aad u wanaagsan waa nin boqora waan runtii anigu aad u jecelahay waxaan odhan lahaa anigu cir ahaan anigu waan dhalay gabadh baan dhalay wiil iyo gabadh baan dhalay maasha allah ubadkana waan jecelahay habluhuna way ka naxariis badan yihiin wiilasha waxaan odhan lahaa aabba kasta sida aabbahaas ugu damqado carruurtiisa oo kale inuu noqdo ayaan jeclaan lahaa intii jecelna ilaahay u siyaadiyo weli muuse aad baan uga mahad celinayaa shahrusaad gabadheer adeerka ahay ayaanu qaaday waa ereyadii xasan saleebaan dhuxulaab saalax iyo laxankuba muusigna waa macalinkaygii ustaad axmed weli ibraahim maxamed runle واتهاي waxaynu daawadayaal sugnaaba waa heestaasi shahrusaad
samaha ku irato sidku yahay dabtay sifagaaru leedahay abano qosaliyo ba samaha ku irato sidku yahay dabtay sifagaaru leedahay abano qosaliyo ba saxariira mudanine usugnow ladnaantiyo isi aan salguurayn haba dunida saraseer saxariira mudanine usugnow ladnaantiyo waxa soo culeedahay surac dhaqanka hooye faral iyo sunaha oo ugu talada saar mawle talada saar soo leedahay surac dhaqanka hooye faral iyo sunaha oo ugu talada saar mawle talada saar abu talada saar sharu saadiyabo abo nimanaya kaasugin la taysal ilahay kuguma simo abo sharu saadiyabo abo nimanaya kaasugin la taysal ilahay kuguma simo abo rusadiyabu abo nimanay kaasugin oo aad tahay sahal ilaahay kuguma simo abo waa tahay shahrusaad iyo macnaha ay ku fadhido iyo waliba de waxa uu fanaanku u qaaday si fiican baad iyadana markaasi aad uga wada bogateen dhanka heesaha
wali waynu ku socon doonaa anigoo og in heesahani ay yihiin kuwa markaasi cusub aadna u wada macaan ciro haddaan dhankaaga mar kale aan soo jaleeco wali adiga iyo naftaadu intaad shawrteen oo aad tashateen labadiinoo keliya ma istira hees nooca iyo noocaasa oo qaab noocaasa u samaysan baad u baahnaan lahayd inaad qaado in badan nimcaan hay in badan baan isiri intii hortii dhaaftay marka laga yimaado imika hees awliye la dhaabaan isiri niyow malaha hees caynkaasa hay waxaa jirta badanka markaad bilaadanka way soo maraan qisooyin badan baa soo mara marar baa soo satana uurkaaga ma qofka bilaadanka la geliyo si uu ogaado waxa ku jira waan gartaa dabeed heestan awliyo kale markaan erayadeeda maqlay ayaan isirniyo hees caynkaas oo kale lagaa sameeyo ee kugu habboonay dan heesta intaan laxan la saarin koor Djibouti baan joognay ababa erayada leh oo agoon reer Djibouti aad baan ugu mahadnaqayaa marka laba heesood soo sameeyey aniga BK marka BK baa yidhi warniyo adigu tan qaado tan ku fiican saakuniyo uurkaygaad ku jirtay waa heestan uurka ka hadlaysa saaxiib in aniga laga sameeyaa ku habboonay ba awliyo heestaasoo kale nololaha awliyo ma awliyada awliya hidda ka hadlaysa marka hayo marka wax soo beegantaa qofka markaad waxaad adigu soo wadatay ama si aad jeclayn inaad samayso markuu isagu sameeyaba uma kuu sameeyo saad jeclayn loo sameeyo qofka jecesha markuu si aad jeclayn inaad ku yeelo markuu ku yeelo waxaad oranaysaa nin mala uurkaaga ku jiray waxay odhanaysaa korkayga uurkayga wixii ku jiray korkaygaad ka akhrido afkaad kala soo baxdo korkaygaad ka akhriday malaa awliyaa tahay yani uurkayga wixii ku jiraad korkayga ka akhrisatay dabeedna waa afkaygu maad kala soo baxday halkii Soomaalidu oran jirtay iga dhex kalluumaysta waa tahay heestaasi awliya iyo mar kale ciro awliya waxaa la ka sameeyay laxamiista weyn oo ilaah baa weyn aad umada Soomaaliyeed oo ugu weyn ugu dheer Cabdiraxmaan Cali Xisi nimcay horta anigu faaninta yarar waxaan israadaa kulay agwaaninta oo waxaan taano waxa dhadaan qolooyinka faaninta waaweyn ee qolo waliba la xamiistayaasha waaweyn aad baan uga saaxiib aan ugu xiranahay waan gartay sabusiyo kale Cabdiraxmaan Cali Xisi rag badan oo caynkaasa waan gartay marka abwaanka ninka Cabdiraxmaan Cali Xisi oo Djibouti iyo umada Soomaaliyeed kala ka caana waan gartay ayaa sameeyay waa nin mugiyo miisaan leh لحمة بدنا وعانا لا أدنى كم هذا النية أريدنا وعبة بعد أريد وعبة واضح الموسيقى حبيبي بدنا ها وحين السجنة بوادة عيادك يولي بعدك محمد malaha
abbaye ilirida warkayga wixii ku jiray warkaygaad ka akhrido waxaan kugu odhan lahaa afkaad kala soo baxdee abbaye ilirida hagaag barnaamijkii oo daawadayaal markaasi gabagaba ah heesta ugu dambaysa ee aan ka codsanayo fanaanka Ciro ayaa waxay tahay dheeraad gobbaa tahay soo saas ma hayn heesta waa tahay cid samaysay iyo laxanka iyo waliba haday jirto qiso heestaasi ku duugan iyo kelmadda gabagabada ahba aan soo raacay heestan waxa ereedeed curiyay abwaan Cabdillaahi Xaaji Cabdillaahi Xasan Gani haya لحن وحال محمد محمود عيقي بوسي وان قرته عبد الله آدم السلام يا هسن هرتني معي واقع حكم مقطع أمان قبلت وان قرته وانا كل هذا الدور كان أمان تايق بدن أمان تدمر كل سوى الراعي هاي بعد لقب والله مهران وان قرته
marka Cabdullaahi baa soo sameeyay laxankana waxa la busi muusiga Axmed Ibrahim Maxamuud busi aad baan salaamaya Cabdullaahina soo kale aad baan salaamaya waxaad raacin lahayd oo aad ku soo gabagabayn lahayd oo iloobaysaa ma jiraan baan anigu aan iloobay oo aad oran lahayd waxa horta kale waxaan ugu hadhayo inkastoo salaanta la isku qaadnaayo kale marka baashaan kamarada marka la hor yimaadana waa gartay kaad ugu jeceshay bad ilaabaysaa aad iyo aad dabcan ha waxaan leeyahay horta dhammaan inta taageerayaashayda aad baan idin salaamayaa waan gartay ehelkayga maadaama fara badan tihiin aad baan idin salaamayaa ubadkayga waxaa kaloo salaamayaa kooxdayda xidigaa geeska iyo dhammaan fanaaniinta waaweyn oo sharaf iyo karaamo naga mudan iyo fanaaniinta nala qarniga nala garanaysaa nala aad baan u salaamayaa dhammaan fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed oo dhan intii fan ku abtirsataba waxaa kaloo salaamayaa Axmed Ibrahim Maxamuud Fulle oo aad iga gacan qabtay fanka iyo Cabdi Habiib محمود حسين غالب نجيب حاشي حسن طاهر اسماعيل ورسن يو حسن محمد صالح انتاس وقف نوا يو عين بعين وسلاميا معنا تيجي وري دقنك يو انتاس waa special kayga fanka waan gartay tirashii fankayga in saaxiibada xidigaagis-kana aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa Home Cable TV adigoo nimca safriyana ku salaamaya sida sharafta leeyahay soo cashantay barnaamijkan mala waxay u maarin waa tahay aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa fanaanka Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo waliba anagoo ku soo marti qaadnay barnaamijka bandhiga nimca samriye oo saan horeba idin sheegay bilowgii barnaamijka hore uu ahaa fanka iyo suugaanta hadda ka dibsan noqon doona bandhiga nimca samriye tan iyo sarag dambe sidaas iyo nabadgelyo ayaanu aniga Ciro idinkaga tagaynaa hase yeeshee muusiga iyo waliba codka macaan ee fanaanka Ciro nabadgelyo jacaylkiina kula dhamay
jacaylkiina kula dhamay aniguna aniguna jacaylkiina kula dhamay jacaylkiina kula dhamay anna gudaha beerkiyo kugu dhafay jirkaygu gacalo dhiiga u milan tahayo kula dhamay aniguna jacaylkiina kula dhamay kula dhamay aniguna jacaylkiina kula dhamay